kulanti wanaagsan mar kale khiyaartana daawanaysa ay ku soo dhowaada barnaamij gaar ah war degdega oo hadda ka soo baxay boqortooyada sacuudi arabiya waxa ay sheegtay in lagu guul daraystay in la arko caawa bishii ramadaan dowladaha qatar iyo sacuudiga iyo dhowr dowladood ayaa waxay go'aansadeen in caawa bishii la waayey arbacana la dhammaystiri doono berito bisha shacbaan khamiistana ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan haddaba warbixintan goordhow waxaa qoray telefishinka aljaziira oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan waddanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo kuwo ka tirsan dowladda waddanka qatar haddaba madaxda waddanka sacuudiga iyo culimmada waxay ugu hambalyeynayaan dadka muslimiinta ah meel kastoo ay dunida ka joogaan in bisha barakaysan ee ramadaan ay bilan doonto haddii allah awoodali ka raali noqdo maalinta khamiista ayna noqon doonto maalinta koowaad ee bishaas ay markaa dhalanayso ramadaan beritana waxaa la gabagabayn doonaa haddii alla idmo bishii shacbaan oo iyana soddonkeeda la kaamili doono haddaba diyaargarow badan ayaa wuxuu ka socdaa dunida islaamka dad badan waxay u diyaargaroobayaan inay bisha barakaysan ka faa'iidaystaan haddaba ilaahay ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta bisha barakaysan ee ramadaan ee bilan doonta sida la sheegayo maalinta khamiista waxaa sidoo kale ilaahay aan ka baryaynaa in ilaahay uuna gaarsiiyo maalinta khamiista ah iyo kuwii bisha ka faa'iidaysta in ilaahay uu inaga dhigo dhammaan asxaabta ku xiran facebookgeena nadaara show iyo youtube channelkeena nadaara show waxaan idinla socodsiinayay akhbaaraadka bisha barakaysan ee ramadaan maadaama caawa bisha aad looga raadinayay waddanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo waddamada kale ee khaliijka iyadoo maxkamadda sare sidii barnaamijkan kii ka horreeyey aan ku soo qaatay ee sacuudigu ay amartay in bisha la raadiyo oo caawa ay dhalan kartay laakiin maadaama hadda la waayey bishii maxkamaddu go'aan kale ayay qaadatay ay leedahay waa la dhammaystirayaa arbacada shacbaan maalinta khamiista laakiin muran kuma jiro waa maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay ha naga dhigo kuwii gaara maalintaas iyo kuwii ka faa'iidaysta bisha barakaysan shahrulmakfirati waalraxma waa bishii dembi dhaafka iyo naxariista waa bishii dadka ka faa'iidaysta ilaahay uu ka xoreynayay naarta marka kuwii ku camal fala oo camal wanaagsan la yimaada bishaas ilaahay ha naga dhigo barnaamijyadeennuna sida caadiga ayay u socon doonaan maadaama ay yihiin news iyo akhbaaro soconaya marka insha allahu sidaa ayaa noo ballana xogtii ugu dambaysay ee sacuudiga aanu ka sugaynayna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa haddaba barnaamijkii gaarka ahaa waa naga intaa anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaar ayaa idinla socodsiinayay fadlan barnaamijyadeena sheergareey oo like saar haddaad kala socoto facebookeennana fadlan follow gareey si aan barnaamijyada aan soo gelin aad u hesho haddaad ku cusubtahay youtube-keenana subscribe saar like na saar inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo